dad badan ayaa taleefanadooda smartiga waxay u yihiin daaqad ay kala socdaan caalamka oo idil bal ka waran se haddii uu halis ku yahay noloshaada qaaska ah weligaa ma kugu soo dhacday ama ma ku fikirtay in xaqiiqda ah in basaas uu jeebka kugu jiro bal qiyaas haddii dadka waxjabsada ay software ama barnaamijyada wax lagu basaaso ay ku shubtaan taleefankaaga kaasi oo galaangal u siinaya in ay la socdaan waxyaabaha kugu saabsan oo dhan ay ku jira moobilkaada gacanta waa hagaag taasi ma ahan wax lala yaabo waxaana jira caddaymo muujinaya in uu jiro barnaamij software ah oo loo adeegsado in lagu dabagalo saxafiyiinta dadka dhaqaalaha leh dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo garyaqaanada ku sugan daafaha kala duwan ee caalamka balse su-aashu waxa ay tahay yaa arrintaasi sameeya maxaase u sameeyaan dadka sameeya arrintan maxaase laga qaban karaa basaaska jeebka kuugu jira mike mary waa khabiir ku takhasusay ammaanka kombiyuutarada iyo shabakadaha oo ka howlgala shirkadda logad oo ku taala san francisco oo ah shirkad ka caawisa xukuumadda dalkaasi iyo ganacsatada si ay taleefanadooda ammaankooda ay u sugaan waxa uu sharaxayaa sida uu u shaqeeyo oo u horumarsan yahay barnaamijka basaasnimada loogu talagalay ee lagu shubo moobeelada barnaamijka software-ka ah ayuu sheegay in sida hubka uu khatar uu u yahay waxa uuna ku taliyey in la adkeeyo iibkiisa qofka adeegsada barnaamijkan software-ka ah waxa uu kaa raadin karaa GPS-ka waxay maamuli karaan dadka barnaamijyadan wax ku jabsada moobeelkaaga kaamiradiisa iyo sidoo kale mikrofoonka taleefankaaga waxayna ku aadin karaan meesha ay rabaan haddii ay mar gacanta ku dhigaan waxay sidoo kale ay duubi karaan wax waliba oo hareerahaaga ka dhacaya waxay sidoo kaleeto dadkan suuragal u ah in ay galaangal ay ku yeeshaan ab kasta oo ku jira moobeelkaaga si gaara baraha bulshada ee aad isticmaashid waxa software-kaasi lagu xadi karaa dhammaan sawirada taleefankaada kuugu jira xogta iyo baasweerada emailkaaga iyo baraha bulshada aad adigu isticmaasho waxa uu taleefanku isu bedelayaa aalad wax lagu dhagaysto waxa ayna la soco karaan dadka inta badan adeegsada aaladahan dhaqdhaqaaq waliba oo aad samaynayso iyagoo kaa warhaya marxalad waliba oo aad ku jirto barnaamijka wax lagu basaaso ee spyware sanado badan ayuu jire balse sidaasi oo ay tahay sanadihii u dambeeyey ayuu noqday midka loogu isticmaalka badan yahay dunida waxaynu halkan aynu ku sharaxaynaa tusaalooyin dhace oo muujinaya sida qaldan ee loo adeegsan karo taleefanadaada gacanta qabashadii aabbihii daroogada ee dunida Pablo Escobar ninkan daroogada ka ganacsan jiray ee u dhashay dalka Mexico Pablo Escobar wuxuu ahaa nin hanti badan leh oo ammaankiisa aad u ilaaliyo hase yeeshee markii uu ka fakaday xabsiga wuxuu baxsad ahaa 6 bilood oo ay ilaalinayeen koox ay xiriir leeyihiin wuxuuna isgaarsiin ahaan u adeegsan jiray taleefan ay adag tahay in wax badan laga ogaado ama la dabagalo balse dowladda Mexico ayaa la sheegay in ay soo iibsatay qalab casri ah oo horumarsan kaas oo u suurageliyay in ay xog ka helaan kuwa ka agdhow isaga kadibna ay u sahlanaatay in ninkan dib ay gacanta ugu dhigaan dowladda Mexico qabsashadiisii waxa ay muujisay sida barnaamijyada teknolojiyadda ay muhiim u yihiin sida looga hortagi karo argagixisada iyo faldambiyeedyada kaleeto ay geysanayaan kooxaha arxanka daran waana mid ka mid ah dhacdooyinka loo adeegsaday barnaamijyada lagu jabsado taleefanka ee lagu qabtay shakhsiyaadka dunida laga baadi goobayo sheekooyinka kaleeto ama dhaqdhaqaaqyada kale ee laga wariyo dadka adeegsaday ababka ama barnaamijyada lagu jabsado taleefanada kuwaasi oo gacanta lagu dhigay waxaa ka mid ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda insaanka kaasi oo muddo dheer la bartilmaameedsanayay Axmed Mansuur oo ah nin caan ka ah bariga dhexe kana shaqaynayay arrimaha xuquuqul insaanka ayaa in muddo ah waxa bartilmaameedsanayay dowladda Imaaraadka Carabta sanadkii 2016 wuxuu helay fariin uu ka shakiyay kadibna waxa uu la wadaagay shaybaarka caanka ah ee daraasadda arrimaha teknolojiyadda shirkadda The Citizen Lab oo adeegsanaysa taleefan kaleeto oo iPhone ah ayaa waxa ay gujiyeen tixraaca loo soo diray Axmed balse waxa ay la kulmeen arrin ka yaabisay waxa ay arkeen in taleefankii ay adeegsanayeen xog badan lagala baxayo oo la maamulayo gebi ahaantiis taleefanada iPhone oo la sheego in ay yihiin kuwa ay adag tahay in loo dhaco ama la jabsado ayaa barnaamijka software-ka ee loo yaqaano spyware waxa uu u sahlayaa qofka adeegsanaya in uu taleefanadaasi gudaha u galo ilaa iyo haatan ma cadda waxa laga helay taleefanka Mansuur balse markii dambe waa la xiray oo waxa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah halkaas oo ay ku qabatay dowladda Imaaraadka safaaradda Imaaraadka ee London ayaa waxa ay warbaahinta u sheegtay in laamaha ammaanka ee dalkaasi ay mar waliba u hoggaansamayaan shuruucda caalamiga ah iyo kuwa u gaarka ah dalkaasi balse kama aysan hadlin marnaba xiriirka sirdoon ay u adeegsadeen Axmed Mansuur shakhsiyaadka kale ee loo adeegsaday ababkan ayaa waxa ka mid ah Jamaal Khashoggi
bishii Oktoobar 2018 wariye Jamaal Khashoggi ayaa waraaqo u doontay safaaradda Sacuudiga ee Istanbul ku taale balse dib uma uu soo noqon oo waxaa dilay dowladda Sacuudiga. nin ay saaxiibo yihiin Khashoggi oo lagu magacaabo Cumar Al Cabdicasiis ayaa sheegay in taleefankiisa loo dhacay arrintaasna looga shakiyay dowladda Sacuudiga. waxa uu sheegay in taleefanka Khashoggi ee loo dhacay ay door weyn ku lahayd dilkiisa maadaama dowladda dalkaasi aysan xilligaasi ku qanacsanayn qaabka uu Khashoggi u dhaliilayay siyaasadeeda. haddaba marka laga soo gudbo sheekooyinkaasi dhammaan loo adeegsaday shakhsiyaadka lagu qabtay barnaamijyada taleefanada lagu jabsado miyaa laga hortagi karaa? dadka aqoonta gaarka ah u leh teknolojiyadda waxay qabaan fikir ah sida kaliya arrintaasi looga hortagi karo inay tahay in la hindiso barnaamij 100% aanan la jabsan karin. waxaana haddii taasi laga meel gaaro ay sheegeen inaysan jiri doonin cid dambe oo dacwo ka ah ababka wax lagu jabsado ee loo adeegsado taleefanada.